xafladan ay soo qaban qaabiyeen dhalinyaro aqoon-yahaniin oo ku bahowday Hargeysa Intellectual Talent Club iyagoo madashana ku soo bandhigay natiijada daraasad ay ka sameeyeen mas'uuliyiinta xilka ka haya xukuumadda Soomaaliland. marwada madaxweynaha Soomaaliland Marwa Aamina Waris Sheekh Maxamed Tirde ayaa ugu horreyn ku amaantay dhalinyaradan sameysay cilmi baadhistan muujinaysa waxqabadka xukuumadda iyo sida had iyo habeen ay heegan ugu yihiin sidii ay shacabkooda ugu shaqeyn lahaayeen mas'uuliyiinta xukuumaddu. dhalinyarada Hargeysa Intellectual and Talent Club ee soo qaban qaabiyay hawshan aad iyo aad u qurux badnayd. hawshani waxay ahayd mid cilmiyeysan, mid dawladda faanis may ahayna waxay ahayd mid qarannimada iyo Soomaaliland jacaylkooda iyo dhexdhexaadnimadooda iyo cilmiga iyo aqliga Ilaahay siiyay ay ku soo bandhigeen oo ay xaqiijiyeen waxyaabo badan oo iyaga iyo qarankeena iyo dadkeena iyo reer miyigeena iyo dumarkeena iyo caruurteenaba u dana ayay muujiyeen ay soo bandhigeen. niyad sami ayay ku sameeyeen dhalinyaradani hawshan ku galeen sidii la sheegay cidna lama kaashan taasina wasiirada iyo dawladda iyo madaxweynaha iyo cid alla cidii hawl qarankan u haysa waxay u noqonaysaa dhiirigelin in maxay ahaaytay shaqadii ay wadeen dadkii loogu talagalay ay taabatay oo ay appreciate gareeyeen ama dareen ka muujiyeen in dhinacii saxda ahaa loo wado hawsha. taasi waxaan hubaa inay dawladdan sii dhiirigelinayso inay dawladdu waxqabadkeeda iyo maxay ahaaytay wanaaga ay ku tala jirtay inay dalkeeda u samayso sii kordhinayso. aad iyo aad baa u mahadsantiin wadaninimada aa muujiseen, leadershipka iyo waxgaradka aa muujiseen. dhalinyarada kale ee reer Soomaaliland waxaan ku hanweynahay inay idinkaga dayan doonaan marba cidun baa waxyaabahan oo kala bilowda wax fiican baa bilowdeen insha Allah bismillaahi kariim sida idin ba sheegteen Soomaaliland oo dhan bay idin gaarsiin doontaa. isna waxa madashani ka hadlay Carafaad Cabdiraxmaan Shamca oo ah gudoomiyaha Hargeysa Intellectual Talent waxa uu sharaxaad ka bixiyay maraaxilka ay soo martay daraasadan ay ku sameeyeen mas'uuliyiinta xukuumadda. Hargeysa Intellectual and Talent Club waa club ay asaaseen dhalinyar aqoon-yahana oo dhammaantood ka qalin jabiyay jaamacadaha dalka. ujeedada ay u asaaseenna waxay ahayd bal si looga hortago qabyaaladdan dhalinyarada ku sii fudaysa si hoos loogu dhigi lahaa. qodobka koowaad waa ka saddexaadna waxay balsaanu mucaaradka iyo muxaafadkaba dhexdhexaad ugu noqon lahayn oo hadday dawladdu wax qabatayna aan si cilmiyeysan u soo bandhigi lahayn si aan dadka indhahooga u tuso inay dawladdu wax qabatay. wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Xuseen Cabdi Ducaale iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Marwa Samsam Cabdi Aadan hadallo mahadnaqa u soo jeediyay dhalinyarada halkan iyagu soo bandhigay daraasadan ay ku sameeyeen hay'adaha dawladda. waxaan ku faraxsanahay dhalinyaradu marka ay iyadu qirto wixii loo qabtay waayo mustaqbalka wax loo qabanayo kuwa haddii xafiis la dhisay iyo haddii iskuul la dhisay iyo haddii airport la hagaajiyay iyo haddii dhaqaale la hagaajiyayba kuwa loo samaynayaa waa dhalinyarada. marka dhalinyaradu markay barato ee qirto iyagu ayay runtii waxqabadkaas wax dhaba yahay. mahadnaq gaar ayaan u jeedinayaa dhalinyarada daraasada ku samaysay oo ku horgashay wasaaradahan maanta macaawa halka lagu xusayo. runtii anagu kama moogtay shaqo fiicnin ama kama dadaal badnin wasaaradaha kale ee maalinkan maanta muxuu ahaayay madaxweyne Siilaaye uu magaranaysa u shaqeynaya ee uu majara u dhigay inay dalka wax ku soo kordhiso. anagoo ka matalayna dawladda inteeda kale mahad aad iyo aad u badan ayaan u jeedinaynaa Hargeysa Intellectual and Talent Club inay maanta dhowr wasaaradaha kamid ah ku maamusto. Maariya xafiiska samafalka Aamina Maxamuud Diiriye agaasimaha Hargeysa Intellectual Talent Club Maxamed Xasan ayaa hadalka iyagoo iska daba maray waxay tilmaameen in la garab istaago xukuumadda waxqabadka oo garwadeenka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. hiigsigayga himladaydu waxa weeyaan inaanu gaarno dhammaan gobolada dalka isla markaana aan u kurgalno maxaa dalka u qabsoomay. waayo haddii maanta aanu annagu nahay dhalinyar caasimadda degan waxaan jecelnahay inaan gobolada dalkana dhammaan aanu booqanno isla markaana aanu eegno bal waxa ay dawladdu ka hirgelisay. wasaaradahan waxyaabahan ku soo doorannay waxaa ka mid ah haddaan sii yaro xoojiyo wasaaradda caafimaadku iyo wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo
TV-ga qaranka iyo wasaaradda duulista iyo hawadu waxay leeyihiin team sports amba dhalinyar ku ciyaarta magaca wasaaradahaasi gabagabadiina waxaa xafladani lagu soo bandhigay documentary ka hadlaya waxqabadka xukuumadda iyadoo waxqabadkoodana lagu abaalmariyay mas'uuliyiinta xukuumadda ee waxqabadka aan la qarin karin qabtay kuwaas oo ay ka mid ahaayeen wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiirka wasaaradda caafimaadka wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta wasiirka wasaaradda maaliyadda wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada wasiirka wasaaradda madaxtooyada iyo sidoo kale maarayaha telefishinka qaranka iyo maarayaha xafiiska samafalka iyo sidoo kale suxufi maxamed ciise aadan